magaalada Beijing ee caasimadda waddanka Shiinaha ayaa waxaa kulan ku yeeshay wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada Ruushka iyo Shiinaha waxayna kulankooda ay kaga hadleen arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay arrinta dagaalka magaalada Gaza ee dhulka Falastiiniyiinta oo ay labada dhinacba sheegeen in loo baahan yahay gurmad degdeg ah oo bani aadamnimo in la gaarsiiyo magaalada Gaza waxayna wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada Ruushka iyo Shiinuhu ay si wada jir ugu baaqeen xabad joojin labada dhinac ah iyo in la furo wadooyinka gurmadka degdega lagu gaarsiinayo dadka ku nool magaalada Gaza waxaana xusid mudan in wasiirada arrimaha dibadda wadamada Ruushka iyo Shiinuhu ay sheegeen in dhibaatada ugu weyn ay tahay cadaalad darrada haysata Falastiiniyiinta ayna tahay in xal loo helo arrinta Falastiin si xal looga gaaro dagaalada soo noqnoqonaya dhanka kale madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa dawladda Mareykanka ku eedeeyay inay ku guuldareysatay fahamka guud ee la xiriira baahida Falastiiniyiinta ee ah in Falastiin ay noqoto dal xor ah taas oo ay xaq u leeyihiin